الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha reer Soomaaliya khaas ahaan dadka Puntland iyo SSC waxaan kaloo salaamayaa saxaafadda oo Axmed Cashuur kala joogo ninkaasi wuxuu ahaa nin saxaafadda ka hadla runtiina anshax xumo kaga hadla ku mahadsan tahay dawladda Sweden oo kala noqotay joogitaankii uu dalkeeda joogay oo dadka ka soo caayay barimageedada ah ninkaas wuxuu taageeray xaq darro wuxuu 9 bilood taageeray niman argagixisa ah oo meesha la yiraahdo laascaano dadka ku leeynayay jabadii argagixisada ay Muuse soo diray uu taageeray oo taageero ahaa wuxuu caayay dadkii isimadii dhaqanka iyo dadkii odayaasha ahaa iyo dadkii reer laascaanood oo dhibtu haysatay ayuu caayay runtii cidii ka hawlgashayna waa mahadsan reer laascaanood waxay noqdeen dad aan fahamsanayn dadka reer waqooyiga oo beesha dhexe oo isaaqa la yiraahdo waxay u haysteen reer laascaanood inay dad kelidooda yihiin sida qaybaha kale oo la degan oo sida reer Boorame oo kale reer laascaanood waxay ka dhasheen dadka NFD degan Soomaaliya dadka inta ugu badan gobolada ugu badan degan oo ilaa 12 gobol degan kililka shanaad degan waa dad iyaga Ilaahay ka tira badiyay bay ka dhasheen kii caytamena waa eeday kii qori soo qaatayna waa noo xidhan yahay wuxuu noogu xidhan yahay laascaanood qaarna way dhinteen taasi waa wax Ilaahay lagu mahadiyo waxaana keentay gardaradii ay wadeen iyo dhibtii ay ka geysteen halkaas ninka war idaad waxaan u maleynayaa waa nin gobolkan Togdheer iyo meelaha ilaa iyo halka iska soo galaan Sool iyo Togdheer waa meelaha waa dadka dega waa dadka xiqdiga iyo dhibaatada ka waday baa reerahooda iyaga fari jiray laakiin soo waxtaa wajigiisa uu qarin jiray ninkaas waxaan u maleynayaa nin dambiile ah oo dadkii dambiyada galay waxaan u maleynayaa inuu yahay dadkii ina godane la shaqeyn jiray waa inuu godane reer Burco ahaa ninka waa in la baaro ninkaasi waxa uu iska saaraa xabuu afka iska saaraa wajigiisa sababa uu qarinayo waxa weeyaan waa nin argagixisa ah waji fiican buu leeyahay waa nin qurxaan ah wajigiisa sababta uu qarinaya waxa weeye waxyaalaha uu sameeyay waxaan u maleynayaa waa dadkii koonfurta Soomaaliya ka soo dagaalamay wadadka dhibaatada ka geystay meelo badan oo Soomaaliya kamid ah waana warcad inay waqooyiga ka yimaadaan waayo godane diilay ku roon yahay aada sunni sheekh sunni diilay ku roon yahay nimankii kale oo ka horeeyay amiiradii al-shabaab oo dhami waxay ahaayeen beesha isaaq ninkaasina waa nin nimanka ku dhow waxaan leenahay reer Yurub ninkaas u fiirsada waa nin argagixisa ah waa nin la og yahay dawladda Soomaaliland way ka waraysaa way ogta maqlaay beesha isaaq wakiilada u jooga way hadlayeen nin la yiraahdo reer ceelafweyn oo la yiraahdo waxa la yiraahdaa xayir maareeyo aynaba ku dhashay baa tiro qoraan qaadanaya oo calaamitayn aynaba hadda qori qaadanaysid haddaadan qaadanin aynaba colkii SSC waa dul fadhiya sida Faysal Cabdi Bootaan baa lagu soo xiray waana beenta weynmis haddaadan qarax ka abaabulin meesha la yiraahdo xamar waayo wakiil baa u tahay al-shabaab ina wakiilu tahay baa lagu ogyahay adiga iyo Cabdi Xaashi iyo Dubiba ina wakiilo u tihiin al-shabaab baa la ogyahay halkan kama sameyn kartid wax la yiraahdo aynaba ma iman kartid laakiin adoo al-shabaab qarax kaga horena uga sameeyay adoo al-shabaab qarax xamar ka sameeyo ma sameyn kartid wax kale waxaan hambaliyo u dirayaa oo marka hore hambaliyeenaya isimada iyo golaha dhaqanka beesha daarood oo isugu yimi meesha la yiraahdo laascaanood gobolka Sool oo ugu horeeyo boqorka beesha daarood boqor Burhaan boqor Muuse iyo dhammaan isimada kuwa yimi kuwa soo socda oo ka yimi NFD ka yimi Kismaayo ka yimi kililka shanaad ka yimi gobolada Puntland oo boqorku hogaaminayo Soomaalida waxa ku mahadnaqdaa madaxa meel la sareeyo oo la taabta ma jirto dhaqanka daaroodku wuxuu leeyahay dhaqankuna uu kala sareeyo dhaqanka daarood cidii ugu sareysay waa joogtaa waa boqor Burhaan qaarna waa ugu yimi qaarna waa ugu yimaadeen runtii
maanta haddaa dhaqanka waxaan leeyahay haddaa laascaanood joogtaan innagu waxaynu nahay dhaqan ku nool reerkuna in badan dhaqankiisu isma arag waxaynu u baahannahay taladii aynu ku noolaan lahayn baynu u baahannahay dhaqanow taladuna gacantiinay ku jirtaa shacabkiinuna wuu idin ogol yahay oo reerka la yiraahdo daaroodku boqorrada ma caasiyo waa idin hambaliyeynaynaa wixii aad soo saartaan baa idin waxa dadkoo dhan idinkaa ka mas'uul ah intiina halkaa tagtay baa ka mas'uul ah waa la ismatalaa waxaan hambaliyaan in badan u diraya waxaan kaloo hambaliyo u diraya dowladda SSC madaxweynaheedii oo ka digay meesha la yiraahdo xamar dowladda Soomaaliya iyo calanka intaba waa la wadaagnaa Soomaaliya waynu la wadaagnaa waxaan hambaliyeynayaa isna Xamse Cabdi Barre Xamse wuxuu ugu sareeyaa siyaasiga halka dhaqanka uu nagu metelo ninka la yiraahdo boqor burhaan siyaasadda maanta Soomaaliya waxa nagu metela Xamse waa ku mahadsan yahay hadduu maanta meeshii dhibaatadu ka dhacday mas'uuliyiinteedii u yeedhay Xamse waxaan leenahay waa ku mahadsan yahay Xamsow waa leedahay Soomaaliyana waa la wadaagaa calankana waa la wadaagaa annaga Soomaali baan nahay dadku waa Soomaali cid Soomaali diidani ma jirto maalin bana cidi joogta in la shaqeeyo waa fiican tahay waa lagula shaqeynayaa waxa waajiba in booska aad siyaasiga daaradu haysid in lagula shaqeeyo haddii cidi hero tiri waxa hore lagaaga sheegay haddaan leenahay waa in ammaantiisa la sheego Xamse waa ku mahadsan yahay arrintaas waa ku